Billy Graham kii yaraa wuxuu ammaanay Billy Sunday kale. Wadaad Billy Graham oo ka mid ah hogaamiyayaashii ruuxiga ahaa ee ugu badnaantii badnaa ee 2 eber ah. Waxaan ku baahannahay waan ku jeclahay waad ku mahadsantahay maadaama aad timid. Fadlan ma soo saari kartaan wacdiyaha qoraaga baraha Dr. Billy Graham. Qaabilahayaga ninka maanta halkan joogistiisa nagu sharfaya. Waa maxay ujeedadaad? Aad dunida oo dhan oo ku dhawaaq fariintan. Waxaad ogaan doontaan runtubana waxay idinka dhigi doonaan kuwa xor ah. In idinka dhigi doonana sida loo dhigo. Markaan dib u jaleeco noloshayda waxay ka buuxdaa la yaab. Waqti hore weligay ma uusan u faydin inaan saaxiib la noqon doono ka kala yimid waddamo kala duwan oo dunida oo dhan ah. Sidaas waxaa u jeclaaday Ilaah dunida wuxuu siiyey wiilkiisa keliya ee dhashay. Waxaan rabaa inaan fiirino isku talaabta caawa. Waxaan arkay sida gacanta Ilaah ay ii hogaamisay. Isku jecelaada. Markaan bilaabay wacdinta sannado badan ka hor uma uusan ahayn fikrad oo ah inaan wacdin doono dad aad u tiro badan. Ka deegaanka isku talaabta. Injiilkan waa mid qof kasta oo dhan. Ilaah waa sameeyey tan. Masiixu waa nool yahay. Ameerika ah ee maanta waxaa ka jira madhan ruuxa ah. Waddankeennu wuxuu ku jiraa baahi weyn oo ah soo teegida ruuxiga ah. Unjow isku talaabta toobadkeenka. Waxaa jiray wakhtiyo aan ooyey markaan ka baxayay magaalada ilaa magaalada oo aan arkay sida dadku ay uga fogaadeen Ilaah. Waxyaabaha oo dhan ee aan arkay oo aan geystay waxaa jira oo keliya hal fariin oo warbixinta nolosha iyo qalbiyada dadka. Waxaa jirayo iri haddii aad ku darsan isku talaabta. Waxaan rabaa inaan dadka uga warramo macnaha isku talaabta. Aan ahayn isku talaabta ku laalaada guwal ama ku imakhti luqsiga qof. Waxaan ka helnaa xanibay oo lagu iibsaday furan ee isku talaabta. Laakiin isku talaabta dhabta ah ee Masiixa. Isku talaabtu waxay muujinaysaa jacaylka weyn ee Ilaah u qabo ninka. Waxay ahayd ku mid qalafsan oo dhiig leh. Kiisa waxay ahayd isku talaab qalafsan. Ujeeddadiisa dhabta ah ee u yimid waxay ahayd biso. Waxaan ku qornaa badan ay ka falcelin fariintan, laakiin waa runta. Iyo qalbigayga oo dhan waxaan rabaa inaan idinkaga tago runta. Ilaah wuxuu leeyahay waan ku jeclahay, waan ku jeclahay. Waan ku jeclahay jacayl weligeed ah. In uu ku leeyahay jacayl oo diyaar u ah in uu ku dhafo dembiyada oo dhan. Kaniisadaheenna ku dhex jira waxaan ku haysan isku talaab. Waa lagu hadlay kitaabka quduuska ah. Kitaabka quduuska ah. Kitaabka quduuska ah. Isku talaabtu runtii macno uma lahayn aniga marka laga reebo wax farshaxan ah oo muujinaya roobku ay hurtaan. Waa qurxin aan ku xidhnayn luqsayada Masiixiyiinta iyo kuwa Masiixiyiinta aan ahayn. Laakiin ka shaqee ee ku saabsan xeeldheeraanta iyo macnaha dhabta ah ee isku talaabta dhalay noqonaysaa meel ka dhac. Maxay tahay sababta? Waxaan sameeyey shakigii ka xagga diinta. Isku talaabtu waa meel ka dhac sababta waxay horgaysataa dadka. Xataa sidaas waa horjoogsi ay tahay in dhammaanteen aan waajahno. In aad ka heshay saahir waa waxa ugu badan dunida aniga ahaan. Waxaan u janjeeraa inaan jeclaado su'aalaha aad uga badan jawaabaha. Sida saahir ahaan waxaad tahay mid aad u shaki badan oo aad ogaataa in inta badan waxa ka socda daahaniisa ay wax been ah ama aan dhab ahayn. Fikradda ah Ilaaha xoogga oo dhan leh waxay u xaqiijiyeen ku mid aad u doqonnimo ah oo markaan la hadlay dadka. Ee aad diida waxaan xasuusan karaa inaan u malaynayay inay ka dhaceen muuqaalka saaxirnimo oo fudud. Waa sida saaxirkii Oz ee daahaniisa ee maamulaya wax kasta. Waxaan u koray fahamsan sida loo sameeyo dadka inay rumeeyaan in wax ay dhab marka ay ahayn dhab. Waxaan ahay meherad yaqaan been abuur ah. Waxaan ahay saahir xagga farsamada ah, laakiin waxaan bilaabay inaan isweydiiyo su'aal weyn oo Ilaah ah, sidaan idhi Ilaahayow haddii aad tahay dhab marka waxaan kaaga baahan ahay inaad igu soo celiso daahanihiisa. Waxaan kaaga baahan ahay inaad i tustid sida ay u kulanka oo waxaan kaaga baahan ahay inaad tan iigu dhiigtid mid dhab ah oo aanan indhahooga ka qabsan karin. Hooyaday waxay mar walba iiga warrami jirtay Ilaah. Waxaan u malaynayaa inaan fikrad ah in Ilaah uu yahay ku weyn oo wanaagsan, laakiin marka waqtigu socday oo aan arkay muuqaalka ka sii tragic ah oo ka dhacaya hareerahayga.
markaan ahay 10 jir, aabbahay oo labaad ayaa inuu isoo qaado markuu yidhi inadeerkay, keli waabso. Waxaan xasuustaa inaan aad u carooday oo runtii aan go'aansaday in haddii Ilaah uu yahay ku weyn oo wanaagsan, maxay tahay sababta uusan u ilaalin badbaado inadeerkay oo ahaa ku aad u yar oo aad u cajiib ah. Ninkii yaraa oo qosol badan oo caqli badan. Maxay tahay sababta Ilaah uusan uga ilaalin badbaado nin muruqa ah oo weyn sida aabbahiisa oo labaad oo ku dilay garaacis. Waxaan dib u fiiriyaa dadka ku dhex jira dhegaystayaasha, markaan istaago inaan wacdiyo, waxaan u fikiraa dadka oo dhan iyagoo leh kala duwan iyo baahidooda kala duwan. Waxaan ognahay inay yihiin walxa jacaylka galka badan ee Ilaah. Heerka uu siiyey wiilkiisa keliya inuu kubso isku tallaabta runga iyo isku tallaabtu waxay ahayd nooca ugu xun ee dilka ah ee Roomaanku u qabtay jireen dembiilayaasha. Ciise wuxuu martigeliyey waxaas oo dhan meeshayada sababta dembiyada. Waxaan u qalanaa isku tallaabta. Waxaan u qalanaa jahannama. Waxaan u qalanaa xukunka iyo wax kasta oo taasi macnaheedu yahay. Waxaan ogahay inay jiraan dad badan oo ku murmaya tan. Dadku ma rabaan inay gaadhaan inay yihiin dembiilayaal. Dad badan ahaan waa meel ka dhac. Isku tallaabtu waa meel ka dhac, sababtii ah waxay si toos ah u horgeysataa xumaanta u maamusha inta badan dunidan. Waad arag, kitaabka quduuska ah wuxuu barayaa in dhammaanteen aan khalad nahay. Nilteen waan ka leexanay. Dhammaanteen waxaan u leexanay jidkiisa. Ka buuxa xasad, neceb, dagaal, hunguri, shahwad iyo waxyaabaha kale oo dhan ee kicin kara keliyaha. Waxaan xusuustaa inaan u bikirayay isla cutubas oo inadeerkay uubso oo ku saabsan xeeldheeraanta xumaanta dunida. Weligay ma macluumaadkii waxay ahayd oo keliya qof cusub oo dhibtoonaada. Kaasi wuxuu ahaa sannadkii aan bilaabay ooyo anoo seexanaya habeen kasta oo aan ka joogsaday rumaysashada Ilaah. Aan ka bahi karin niyadda jabkayga, sidaas darteed waxaan bilaabay barashada diimaha kale. Waxaa jira fikrado badan oo wanaagsan, ma jiran wax bogsiin dhab ah oo jira. Waxaan xasuustaa inaan u malaynayay waxaan ka daalay saamaynta ku jira qalbigayga. Waxaan ka daalay inaan sariirta u aad sidaas. Waxaan ka daalay inaan u muuqan sida rago. Waxaan oo keliya ka daalay inaan ogaan sababta aan noolahay. Sidaa darteed, waxaan xusuustaa habeenkii aan jiifay sariirta waxaan ogaa inaan isdili maalinta. Waxaan ogaa inaan tanaasulo wixii ka dambeeya bishaaro. Waxaan ku bixinay noloshayda raadinta saaxiibnimada. Waxaan ahay ku guulaystay, laakiin ma lahayn wax fikrad ah oo ku saabsan sida aan uga sheekaynayo geerida. Weligay ma iloobi maalintii ninkan uu soo galay qolka markuu yidhi, Murmunroe, ma ogi sida aan kuugu sheego, laakiin waxaad leedahay kansar. Waxaan idhi, maxay tahay? Wuxuu i fiiriyey yidhi, Murmunroe, wuxuu yidhi, kuma bogsiin karno cudurkaaga. Xaskayga iyo aniga waxaan ku jirnay meel xun. Ilaahayow, meelkee ayay tahay joogtid? Waxaan u malaynayaa inaan ahayn ku sidaas weyn. Waxaan guursaday 5.
waxaan lahaa gabadh triddo ah oo keliya iyo wiil yar oo 2 ah oo waxaan ka baahnaa wakhti ka badan oo aan la qaadan doono qoyskayga. aniga oo waajahaya geerida waxaan bilaabay dib u fikirka shaqadakii aan sameeyey iyo khaladaadkii aan sameeyey. miiteen waxaan nahay dambiilayaal. waxaan dib u leexanay Ilaah. taasina waa wax aad u dhuqan anaga sida dad gaar ah. dembigu waa cudur ku jira qalbiga xanuun. waxa uu maanka iyo rabitaan iyo dareennada. qayb kasta oo ka mid ah noolahaheenna waxaa jira cudurkan. sida aan ku jebi karnaa silsiladdan. sida aan ku noqon karaan kuwa xor ah. Ilaah nagu soo dhowaada inaan jebinno silsiladahaas. kitaabka quduuska ah wuxuu leeyahay haddii qof kasta uu ku dhex jiro Masiixa wuxuu yahay uun cusub. waxyaabihii hore waa tusaale. waxa uu kaaga dhigi karaa qof cusub oo dhan. maalintii aan hore inaan isdilo waxaan ka imid dugsiga ayaydayna halkaas joogtay mana ahayn in lagu talagalo inay joogto halkaas. fiirisay oo tiri waxaa jira wax qalad oo ku jira aniga. waxaad noqon doontaa. waxaan idhi ma jirto jid aan ku cadaadiyo. boqorka ku qaylisay korka sanbabadeeda sida waxaan ku jirnay dagaal dib iyo hore ah. sidaa darteed waxaan go'aansaday waan aadi doonaa oo kadibna waxaan sii wadi doonaa oo aan raaci qorshayga. waxaan ka necebaa wuxuu ka badan yahay qof kasta. wuxuu yidhi waxaa jira ruux isdil ah oo qolka ku jira dhufays buxun oo dhan ayaa ku istaagay isagoo qoortayda. waxaan ahay tani waa wax aad u cajiib ah. waxaan kacay oo aaday milka. nin madax cad ayaa meesha jooga intii i qalday yidhi rabbigu wuxuu rabaa inaan kaaga warramo. wuxuu rabaa inaad ogaato in sababtoo ah aad ahaanin aabbe dunida ah in Ilaah uu noqon doono aabbe ka wanaagsan aabbe kasta oo dunida ah oo aad u yeelo karto. Ilaah wuxuu og yahay muuqaalka ku jira qalbigaaga. wuxuu ku arkay adoo oo booska seexanayso habeenkii. fikradda waxay ahayd ku aad u xoog badan aniga ahaan. wuxuu yidhi ma doonayo inaan kuu dubeeyo si Ciise uu uga qaado dareenka qalbiga. wuxuu dhigay gacantiisa garabkayga markuu bilaabay inuu dubeeyo. waxay ahayd sida Ilaaha uunka uu ku soo muuqday muuqaalka. waxa ugu fiicnaa ee aan arkay waxay ahayd in uu yahay quduus oo wanaagsan. waxaan nahay dambiilayaal. waxaan jebinnay dhismaha Ilaah. waxaan u qalanaa xukunka laakiin Ciise wuxuu u qaatay sababayada. isku tallaabtaas runga Ilaah wuxuu saarayay Ciise dembiyada. keliya uma ay dhigin musmaarada gacantiisa laakiin ka hor intaas waxay u garaaceen si xun. garaacista Roomaanka waxay ahayd wax aad u xun. waxay qabeen jeedallo iyo rasaas. jeedalladaas runga ah garaaceen qof ilaa so dhow. kadibna waxay qabeen isku tallaabtaas tusay inuu sado isku tallaabta taas oo ahayd khaliisa daciifka ah dhexdeeda waxay ahayd wax aan macquul ahayn dhow. laakiin wuxuu sado isku tallaabtaas meel ka baxsan Yeruusaalem. kadibna waxay keeneen musmaarada gacantiisa laakiin taasi ma ahayn dhibaatada dhabta ah. dhibaatada dhabta ah waa markii uu yidhi Ilaahayow Ilaahayow maxaad ii xoraysay. wakhtigaas xun hoggaamiye isaga iyo Ilaaha Aabbaha ah waa la kala leexiyey. wuxuu qubay dhiiggiisa oo qubitaanka dhiigaas wuxuu wataa nolosha Ilaah lafteeda.
dhiiggu waa meesha ciidanka ka dhex jira Ilaah iyo ninka. Kitaabka quduuska ahna wuxuu leeyahay aan lahayn qubitaanka dhiigga ma jiro dhaf. taasi waa waxa Masiixu ku yaal isku tallaabta runka. Wuxuu samaynayay kafaara gubida dembiyada Ingiriis qubayay dhiiggiisa. hadda iftiinka ka qaado dhiigga taasi waxay macnaheedu tahay inaad bixinayso noloshaada. taasi waa macnaheedu. waxay macnaheedu tahay nolosha Masiixa. isku tallaabta iyo soo teegida Masiixa waxay soo saartay dembiga. waxaynu siinay nolol cusub oo dhankeena ku siinaysa nolol weligeed ah. haddii aad u aragto isku tallaabta toobadkeenka iyo rumaysadka ilaa aan wax aad u xun ay dhacaan, noloshayda waxay ahayd in laga dhigo ku dheji. dhakhtarkii wuxuu fiiriyey markuu yidhi, Monroe wuxuu yidhi, kuma bogsiin cudurkaaga. waxaa jira wax si kastaba ha ahaatee oo aan doonayno inaan isku dayno. waxaa loo calaa beddelka dhuxa lafaha. dhibaatada ku jirta jidhkaaga waa in unugyada dhiiga cad ay daabacaan koobiyo xun oo ka mid ah koobiyada xun. jidhkaaga wuxuu isku dhegrayaa anigiisa. wuxuu ku kaydiyey sawirka anigiisa runka. sidaas darteed waxa aan kaaga baahannahay inaan isku dheelno waa si buuxda u baabi'in nidaamka. waxa aan rajaynayno inaan samayno waxaan rajaynaynaa inaan helno qof dunida ku jira oo nakiisa uu u dhow yahay kantaada oo ku filan inuu ka soo saaro nidaamka difaaca cusub oo dhan, nidaam dhiig oo cusub oo dhan dareerka. waxaan daabacaa faallooyinka ugu wanaagsan oo qof kale ah magacaaga runga si aad u noolaato mar kale. Ilaah wuxuu yidhi aan lahayn qubitaanka dhiigga ma jiro dhaf. waxay inuu ahaa jiro beddelkaaga oo qaadi doona. aan u qalanto geerida aan u qalanto beddelkaasna wuxuu noqday Ciise Masiix. waxaan u bikirayay aniga ahaan nin wakhtigayga uu dhammaanayaa. waxaan u bsooynayaa kansar. waxay ahayd wax aad u xun oo lagu heshiiyo. hadda Bayton waa triddo hal gefinna waa laba. labadayda ilmo yaryar haddii tan ay qaado nolosha goor hore waan idin jeclahay. waxay nooca ugu xun ee jimo ujeeddadeeduna ma ahayn oo keliya in lagu baabi'iyo calanka jidhka ku jira. laakiin waxay ahayd si dhab ah in la igu baabi'iyo aniga. waxay ahayd jahannama. waxay ahayd geeri tartiib ah. runtii waan baqayaa. runtii waxaan isku dayayaa inaan ahayn ku cabsanaya, laakiin waan cabsanayaa. waxaan isku dayayaa inaan u ahay ku xoog badan xaskayga iyo qoyskayga, laakiin waan aad u cabsanayaa. waxaan sugaynay inaan kan geysanno barnaamijka qaranka ee dhiigga dhuuxa lafaha mas'uuliyiinta milyan oo dad ah oo hadda lagu qoray xogta. waxaan jiray hal beddel oo ugu wanaagsan aniga ahaan oo keliya hal. waxay ahayd gabadh meherad ah oo 19 ah. kadibna weligay ma iloobi doono. goono iyo tridada waxay keentay kiishkan dhiiga ah ee qolka oo qof kasta wuxuu rajaynayay wakhtigaas in jidhkayga uu ka heli doono noloshaas cusub, dhiigaas cusub. waxaan halkan fadhiyaa maanta, Manuel Boqol, oo aan ka hor ahay oobso oo meel kasta oo ka mid ah khibrad. waxaan u imid inaan si cad u arko waxa Masiixu ii dhigay isku tallaabta runka. wuxuu siiyey dhiiggiisa aniga ahaan si aan u nolol weligeed ah. waxaan dib u xasuusanayaa aayad ku jirta Qalatiya 2 oo leh, miyaan ahayn aniga oo nool, laakiin waa qof kale oo ku nool qofkayga. Yohana 1:7 wuxuu leeyahay, tani waa nolol weligeed ah, in lagu ogaado adiga, Ilaah, iyo Ciise Masiix oo aad soo dirtay. waxaan si buuxda u buuxinahay sheegashooyinka Ciise sida qof shaki badan oo sida saahir ahaan. waxaan aqaanay in Ilaaha uunka uu igu soo celiyey daahaniisa sida aan u caddayn. kansarku wuxuu ahaa sida uu ku sameeyey nolosha dhexdeeda oo waxaa jira kansar ruuxi ah oo nagu cunaya. aniga oo dhammaanteen waan baahannahay, dhammaanteen waxaan baryayna qof inuu soo galo oo uu nagu xoreeyo goobtaaska. taasina waa waxa Ciise ku sameeyey isku tallaabta runka soo teegida ee wuxuu biso.
haddii ilaah uu i fiirin lahaa oo leh baxi weligaa wuxuu noqon lahaa ku sax ah waxay lahaan lahayd isla wakhtigaas aan daahay tan waxaan daahay isaga oo iigu yeedhaya duubista nimcada iyo jacaylka aan shuruudda lahayn waxay ahayd sida ilaah uu leeyahay waan ku jeclahay waan ogahay inaad ka fogaato jidka aad noolayd sidaan kaaga dhigayaa ku cusub haddii aad igu iftiimin doonto qalbigayga wuxuu ahaa oo keliya haa wuxuu keliya yidhi haa waxaan ka baahan ahay tan waxaan calaamad tan fadlan taasina waa sababta aan u toosay maalinta xigta waxaan oo keliya ku helay nabad iyo farxad sidaas ah oo aan weligay dahin ka hor ciise xoreeyey noloshayda oo runga oo dhan wax kasta oo kale nolosha wiilkayga iyo ilmaha cusub taasi ma noqon lahayn ciise haddii uusan soo gelin oo uusan badbaadin waxa aad u xoog badan oo aan u fikirayay waa inaan u fikirayo in ciise uu noqday dembi dhalay ahaa dembigayga alaab ahayd waxyaabaha aan sameeyey oo ku hayay isaga isku tallaabta runga waxay ahayd waxyaabaha aan sameeyey wuxuu ku laalaaday oo qaawan isku tallaabta runga oo dhiig leh jid eeb ah oo runga si aanan weligay uga baahnaan inaan ka eeboobo waxyaabaha aan sameeyey runta waa ma jiro jid kale oo ka baxsan masiixa iyo waxa uu sameeyey ma jiro nolol ka baxsan taas ma jiro jid kale oo badbaado ah marka laga reebo isku tallaabta masiixa ciise wuxuu yidhi anigu waxaan ahay jidka runta iyo nolosha ma jiro nin u deggan aabbaha marka laga reebo aniga ciise masiix maxay tahay sababta ciise waa ku keli ee dhashay dunidan anoo aan lahayn dembi laakiin wax intaas ka badan wuxuu ahaa ku reebay ah oo xanaanada u ah isaga waxaad ku xidhan tahay ilaah ma sii arko dembigaaga ma sii arko qalbigaaga wuxuu arkaa ciise hadda ma fahmayo wax kasta oo ku saabsan waxaa jira dhalo badan oo ku saabsan isku tallaabta iyo ku saabsan badbaadada oo aan fahmayn mana ahayn inaan sheego fahmayo wax kasta waxaan ahay kula sheegay inaan rumaysto eegana ereyga rumayso wuxuu macnaheedu yahay ka mid waxaan ka mid nolosha si buuxda u saro masiix wuxuu leeyahay isku tallaabta runga waan ku xorayn doonaa waan ku dhafi doonaa waan ku beddeli doonaa waxaan kaaga dhigi doonaa qof cusub haddii aad u dhigi isku tallaabta toobadkeenka iyo rumaysadka waxaad tahay masiixa unjow masiixa marka u masiixa waxaad u qaadanaysaa jidka aad u run toobadkeenku wuxuu macnaheedu yahay in lagu beddelo jidka nolosha oo laga leexdo dembiyada oo loo leexdo ciise masiix oo la leeyahay waxaan ahay dembiile waxaan ka baahan ahay dhef waxaan ogahay inaad tahay ku keli ah ee beddelka kara rajada waxay noqotay madow maalintaas xun dhulka oo dhan wuu ruxmay muujinta jacaylka ka tirida maalmood oo aamusan dhulka calaamad jidhkan dhashay aawadiis og go'aanka jannada laakiin maalintaas oo liqaysan iyo maalinta sharafta leh jannada waxay furay qabriga wuu nool yahay oo wuu ka kacay runtii oo amaankaaga awoodiisa geedka naxariista fadhiida jacaylku guulaysta
kitaabka quduuska ah wuxuu leeyahay in kasta oo caasiyadayada iyo reebitaankayada ah ilaah wuu ku jeclahay. Wuu ku jeclahay sidaas darteed wuxuu siiyey wiilkiisa inuu ubso dembiyadaada aawadood. Markii Masiixu ku ubso isku tallaabtaas runga wuxuu noqday ku dembi leh oo been ah. Wuxuu noqday ku dembi leh oo xanti ah. Wuxuu noqday ku dembi leh oo xasad ah. Wuxuu noqday ku dembiilayaal ugu xun oo ugu qasab badan. Masiixu wuxuu qaatay jahannamada oo adiga iyo aniga aan u qalannay. Hadda ilaah wuxuu leeyahay qabiil usaga. Rumayso usaga. Dhig traaga iyo beshaada usaga runga waxaan ka dhalan doonaa dembiyada waxaan kuu qori doonaa weligeed oo jannada ku jira. Waa wax kasta oo kaaga ah waana ku bilaash oo dhan. Waxa oo dhan oo aad dareemayso waa inaad qabasho. Maanta waxaan kaaga dhigay inaad diigtid traaga Masiixa runga. Waxaan kaaga raadin doonaa inaad dubeeyada kan jumlad kadib jumlad aniga niyadayda kadib. Abbahayga jannada ah waxaan ogahay inaan ahay dembiile waxaan kaaga boon yahay dhafkaaga. Waxaan shabakadahay inaad ubso dembiyada aawadood oo aad kacday geerida ka. Waxaan ka leexanayaa dembiyadayda. Waxaan toobad keenayaa dembiyadayda. Waxaan ku soo dhowaynayaa inaad soo gashid qalbigayga iyo noloshayda. Waxaan rabaa inaan ku tiraado oo aan ku ogaano sida loo yaqaan iyo badbaadayayga. Magaca Ciise, aamiin. Wuu nool yahay. Waxaan siiyey noloshayda aan ahayn Masiix biso laakiin Masiix nool. Waxaan ogahay meesha aan ka imid. Waxaan ogahay sababta aan halkan u joogto. Waxaan ogahay meesha aan aaday. Adiguna. aad dunida oo dhan oo ku wacdiya Injiilka oo dhan uunka. Ciise Masiix ma biso. Wuu nool yahay halkan caawa. Iskaashiga la yeelo ururka wacdinta ee Billy Graham ee dembiyada ku dhex jira. Internetka wacdinta ah waxaan u gaaraynaa dunida sambalada wanaagsan 24 saacadood maalintii. Wadaadada talaabada dhaqsaha ah waxay galayaan dhexda traagikada si ay u bixiyaan rajo dadka xanuunaya. oo waxaan sii wadaynaa ku dhawaaqista jacaylka ilaah ee loo maro dabaaldegyada Franklin Graham iyo celebrasiyada Will Graham. Nagu soo lig. Soo booqo Billy Graham T ama wac 877 sida calaamad ah waxaan kuugu soo diri sawirada John Macartur ee cibaadada. Hadiyadaada waxay keeni kartaa beddelka nolosha qof. Wac ama soo gal maanta.